هذا ما كل واقعنا نتيجة كسب هذه تطمياشة يغطي كقولستي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أيام هذله ونقول من حفلتنا نسوي نكسن. هذين سأقول واقعنا عبحنتي سعتين نتيجة اللي وحنا نقطع سنة عن صوصعتها. وحنا عديجي إلا يلا بلا تنحلبان. وحنا نترتمي سدح مشرح وكلاه. مشرح ياسين آدم عرب. مشرح مسلم حرسي أو فارح. يوم مشرح مدر عبد الرحمن فارح. وحنا نقطع نتيجة سنة عن صوصعتها. مشرح مدر عبد الرحمن فارح وحده موسى هيلي. مشرح مسلم حرسي أو فارح وحاو هيلي لحعد. مسلم حرسي أو فارح وحاو هيلي لحعد. هلكا مشرح على جراده مشرح ياسين آدم عرب وهيلي شنية طبعا قدوميها سبورتيغا دانياتا نيو ستار لانتي سدحاد وحا ياسين آدم عرب. سيدنا هرو شيغناي waxay ahaayeen xildhibaanada 22 lix markii lagu daro 15 waxay noqonaysaa 22 halka warqad ee maqan waa warqad codkeedu gubtay marka sida iyo hambalyo aynu leenahay madax musharaxa cusub yaasiin aadan carab waxaynu ku soo dhaweynaynaa xiriiriyaha alxamdulilah waxaan filayaa guddiga gunaanadkii waxaa guul noogu dhammaatay waxaan u qabsanay xafladeennan oo ahayd inaan ku caleemo saarno guddoomiyaha dhalinyarada xaafadda New Star oo ka tirsan laanta saddexaad. waxaa ku guulaystay horta horaan waxaa loo dhahay gar laba nin kama wada qoslaysan. xilkaa waxaa ku guulaystay musharax yaasiin waa ugu hambaleynayaa wax yar waa siinaynaa musharaxiinta kii laga guulaystay kii guulaystay codkooda. waxaan laakiin ka hormarinayaa madax ka tirsan isboortiga xaafadda isboortiga gobolka afan oo nala joogta. waxaan kusoo dhaweynayaa waa maxaaweli oo ah macalin ka mid ah macallimiinta naadiyada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا جماعة ونكسن مرة كوبان إلى سبحانه وتعالى طبعا نبينا صلى الله على سيدنا محمد. waxaan iska rajaynaynaa farta kifaayaha waxaan ka codsanayaa in saliga nabiga badino maalinta macalinka ka faa'iidaysano. waxaan marka labaad u hambaleynayaa musharaxiintii tartamaysay dhalinyarada laanta saddexaad ee israac iyo kooxda kubadda cagta ee New Star. aad baan u hambaleynayaa hambalyaan leeyahay. runtii waxaan dareemayaa farxad aad u qiimo badan. waxaan dareemayaa agaasim wanaagsan. waxaan u jeednaa indhahaygu qabanayaan kala dambeyn ismaamul isgelin iyo isjacayl dhalinyaro iyo xaafadeed iyo hooyooyin adeeg ka bilowdan. waxaan rajeynayaa in dhalinyarada xaafadaha kale laamaha kale ay kusoo wadayan doonaan sidaan oo kale meeshaan ay noqoto cashar laga barto kooxda New Star iyo xaafadda laanta saddexaad siday isugu xiriirsan yihiin hooyooyinka iyo dhalinyaradu. waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyooyinkeena iyo haweenka baa moodi inay gacan ka geysanayaan xafladan aad u qiimaha badan. agaasimkeeda koowaadna aan rajeynaya in leeyihiin dhalinyarada. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin hadal badiyey ma yaray nin badiyana nin yareeyana ma badin baa. salaada jimcaha aynu ku jiraan awgeed waxaan hambalyada iyo bogaadinta iyo farxadda qiimaha lala qaybsanayaa musharaxa guulaystay iyo musharaxiintii laga guulaystay iyo dhalinyarada xaafadda iyo haweenka iyo hooyooyinka. aad baan idinka mahadcelinaynaa maadaama aan halkaan aan nimid oo aan martideeda aan lahayn. kole waxaan rajeynayaa waxaan idhahnaa waa hambalyo. waxaan markhaati ka noqonnaa waa xafladan quruxda badan oo qiimaha leh ay soo bandhigaan xafladan dhalinyaradeedii. waxaan rajeynayaa inaan inta kale oo gaalkacyo oo martida aan u ahayn inaan gaarsiino inaan mataqaanaa bogaadino inaan taageero idiin muujino. waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa kooxda New Star waxay ka mid tahay kooxda New Star
inkastoo aan xaafadda aan soo geli jirin laakiin waxay ka mid tahay kooxaha ugu quality-ga badan ugu horumarka badan maamul iyo ciyaartoy waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyaradaas New Star xaafadda laan saddexaad ayagoo magacooda wata inay ilaaliyaan sharaftii gobolka sumcaddii gobolka iyo tii Puntlandba sida kulamadii awooyada u adeeysay loo yimid ay guulaha ugu sugotiyeen kooxihii ay la dheelayeen waxaan markay ugu dambeysaan kusoo gabagabaynayaa waan leeyahay musharax yaasiin waa mid kasoo bixi kara xilkan waa mid dhalinyaradan hogaamin kara waa mid xaafadaha kale horumarkii ay gaareen ama horumarkii ay gaadhayna la gaarsiin kara waa mid isku xil kara bulshada reer Gaalkacyood dhalinyarada ka wacyigelin kara taariikhda muxaadaraadka iyo waxyaabaha foosha xun dhalinyarada ku kacaan waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan horumar wanaagsan guri guri assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته sidoo kale waxaan marti noogu ah meesha nin ka mid ah garsoorayaasha gobolkan oo bahda isboortiga kasii khaas garsoorayaasha waxaan kusoo dhaweynaynaa asagana waa Cabdullaahi Francisco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هويوينك وسلامية دليرada xafladan aad u qurux badan aan ka soo qabkay aad baan ugu faraxsanahay xildhibaanada kuwa laga guuleystay iyo ka guuleystaba waan salaamayaa New Star New Star horumar gaar ah aniga in leedahay in mudana ciyaaro badan ay ciyaarto waa soo qabtay waan u hambalyeynaa gudoomiyaha cusub ee yeelatay aad iyo aad aad u mahadsan yahay Cabdullaahi sidoo kale waxaan kusoo dhaweynayaa kabtanka ama madaxa naadiga New Star oo xafladan soo abaabushay Masar Idris Axmed Ciga. بسم الله الرحمن الرحيم. marka wada salaamantiin dhamaantiin waxaan noo ag joogtaa marti badan mar raba halka dheereeyo insha Allah waan soo gabagabeynayaa maadaama ku hadlay magaca kabtanka xaafadda waxaan u ambaleynayaa gudoomiyaha cusub Yaasiin Aadan Carab iyo gudoomiyaha kale ee guuleystay Madar Faarax Dhombe iyo Musin Faisal Faarax waxaan leeyahay hambal dhamaantiin waan soo dhaweynaa noqda midno waa qaban axilkiina insha Allah waxaan soo doonaa Yaasiin wax qabadada ballan qaaday inuu macaan noo fulin doono dhamaanteen oo fadhina insha Allah ma santiin aad u mahadsan yahay Idrisna haddana waxaan kusoo dhaweynayaa mar labaad dib ugu laabanayaa musharaxiintii kii guuleystay iyo kii laga guuleystay waxaana ka bilaabayaa musharax Madar iyo waxa uu ka leeyahay marna waxaan ugu soo laabanayaa teatarka saaxiibka Yaasiin oo ku guuleystay gudoomiyaha aad baan ugu hambaleynayaa dee hore aad u yidhi karin laba nin kawada oo qodasho waana kaan sidoo kale waxaan kusoo dhaweynayaa oo aan taxgelinayaa musharaxiinta oo macalin Ilyas mar labaad iyo waxa uu ka leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan musharaxiintii meeshaan ku tartantay kii guuleystay iyo kii laga guuleystaba waxaan kula dardaarmayaa musharaxa guuleystay inuu uga dhabeeyo dhalinyarada ballanqaadkii uu sameeyey annaguna haddii aan nahay bahdii sportska oo gobolka Mudug waxaan ku ballan qaadaynaa inaan iyagii hooba kula garab istaagi doono waxaan si gaar ah oo si gaar ah kun jira uga mahadcelinaya haweenka oo hooyooyinka iyo gabdhahaba leh ee maanta meeshaan aan ku arnay oo u taagan inay wiilashooda garab siiyaan wax lagu farxo oo aad loogu yaaqo wey welina ma arkaa
hooyooyin walaalayaal waxaan leeyahay wiilashiina sidaas garabka u istaaga uuna qabqabta si aysan dhallinyaradii looga taalimin waxyaaba xun baanu ku mahadsantiin waan idin hambalyeelayaa kulli kooje asalaamu calaykum aad buu macalin Ilyaas noo mahadsan yahay waxaan jeclahay mar labaad saas oo kale inaan ku soo cesho gudoomiyaha laantan si gaar ah laantan oo laanta saddexaad oo nala joogay maantay una jeeday doorashadii say u dhacday isagii fikirkiisa iyo mar labaad soo ran bismillaahi raxmaani raxiim waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol maqsuud baan ka nahay sidaa hawsha u dhacday quruxda badan waa hambalyeynayna dhammaan dhalinyarta kasoo qayb gashay dhammaan mas-uuliyiinta faraha badan waan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa salaam gudoomiyaha maqsuud yaasiin waa ku soo dhaweynaynaa waana kula dardaarmaynaa oo xil waxaan ku qaaday intaan waxaan kula dardaarmaynaa xadiiska rasuulku uu yiri haddii ammaana man igtamana walaa takun maqaana ammaanada u gud sidii lagugu dhiibtay ciddii ku dhiibtay ammaanada u gud walaa takun maqaana lawaayi maayo qof iska jilaafaa wixii adiga macnaha way mas-uuliyad baad qaaday cilad kastoo aad la kulantid mas-uuliyaddii lagu imaday baa lagaa rabaa saasaa lagugula dardaarmaya dhammaan inteena kale waxaa layna ka rabaa shaksi kaliya wax ma qaban karo inteenaan baa garba u ah sidii ayna u garab istaagno oo shaqada ula qabano shaqadiis u gudan doonaa waxaan intiinaan idinku boorinayaa inaynu garab istaagno la shaqayno gaar ahaan aniga dee xil gaara iyo mas-uuliyad gaar ah ay saaran waa wada shaqayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaan kusoo dhaweynayaa musharaxii labaad oo codka labaad helay waa muslim xisi kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم لا بقى ما عندك كلام نوزو قبل هوشاني وحنا كل علي في أي عدالة كل عام صحيح ويشان كرب لنوان قالني ما هن أوكريان لصوت الثمو إن ما يسلو كرتي كلمة يعني وجدنا وحيد إن حلقة أبطل الدولي بنوين دعدي ولكن ياسين وكنت غيرنا مرة بنا كرب في سنة قلنا لما أنت هتان هاي يشتغل حلقنا نحلقة لإيقاد بسومالكم معنا ku aadaamayno markaa xilkiisa mar walba gacan baa ka siinanaa waxaana noqon doonaa kuwii garabkiisa taagnaada wax walba u baahan yahayna waan ka qaban doonaa fikir haddii u baahan tahay caqli haddaan dhaano intaba waan ku korni doonaa hadduu ilaahay idmo wuuna ku mahadsan yahay aad baan u mahad celinayaa asalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka ahaan musharaxii labaad ee u tartamaya xilka guddoomiyenimada xaafadda hadda waxaan kusoo dhaweynayaa oo mar labaad gadaal ugu soo celinayaa waa faadumo murjaan السلام يا دمان aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa idin xil qaada eed qaad waaho waxaan jeclahay inaan la qabataan wax qofka bini'aadamka waa ka qaldami karaa qaladkiisa inayda ku eeday yaasiin haddaan taariikhdiisa ka sheekeeyo inta ka hor meel yar baan farbashey ku lahaa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi dhalinyaro aan isboortiga haddaan nahay waxaan rabnaa inaad dareysi noo samaysid ama dhaawaca noo dhaydid aan wax yar kugu darsano oo macnaha naga caawis xagga dhaawaca dhalinyaradu waa kufaysaa waa jabaysaa waa dhacaysaa waa muruq baa gelayo dhiig baa fadhiisanaya waxaan kaa rabaa bu inaad samaysid wax dareysin ah xitaa qarashkiina kugu darsano malaha markaas wuxuu u fakarayayba inuu guddoomiye noqdo waayo intaas fikirkiisa soo qaatay oo intaas yaasiin waxaa ka mid ah wayla sheekaysan jiray
waxaan kula sheekaysan ma ahayn inaad sheekadan waxay ahayd sportska badanaan u duraadin jiray sidee horumarku gaarnaa marka waxa weeye nin aad u wanaagsan wey maasha allah waxaan leeyahay yaasiin aniga waqtigay wiildeed baa ii joogo waxaan rabaa inuu qaybta ugu saraysa ii gaarsiiyo beri ka maalin halkaa uu ka soo hadlo iraado limintaa waxaa iska lahaa yaasiin insha allah waan soo dhaweynaya aad bay u baahantahay faadimo waxaan jeclay inaan hoogaa huduu ku darno yarayno buuqa waxaan jeclahay inaan haddana kusoo dhaweeyo maamada nala joogta oo maamo ruqiyo oo goobjoog u ahayd maasha allah horta iga raalli ahaan anuu meesha waa soo galay waa la ii yeeray hawsha hadda qaabin ma socon yaasiin tan iyo shalay waa istarkeena